السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan inoo wadaa qisadani waxa ay ku dhacday wiil la yidhaahdo cabdulilaah. qisadan ama falkan xun ee cabdulilaah ku dhacay, ilaahay ha u naxariisto, waa dhintaye waxa u geystay wiil curyaana oo la yidhaahdo siban waa wiil curyaana. haddaba waxaynu horta bal hada gelaynaa wiilkan curyaanka ee falkan geystay noloshiisii hore muxuu ahaa. siban waa wiil noloshiisii hore ahaa wiil aad u dhib badan. waxa lagugu leeyahay xitaa haddii laysku keeno caruurta adduunka joogta oo dhan kala badh, yacni dhibtoodu isaga keliya ayay ku koobnaanaysaa. dhibaato meesha uu ka gaadhay marka la misaalayay. waxa dhacday in wiilkani iskuulkii ka baxay, gurigooda aanu soo geli jirin, dub jir noqday, wadada cidi ka mari kari mayso, qof weyn qof yar cid walba yacni wuxuu geysanayaa dhibaatooyin. heer waxay gaadheen ay reerkoodii nacadiin meeshii u dambeysay. dariskiina hadalkiisa badaa, qof reerkoodii nacay oo dhibsaday daris jeclaanaya ma jirte. waxa dhacday in wiilkan ay ku dhacday 16 jir markii uu noqday in walaalkii lama sheegin wuxuu ku sameeyey ee uu sugay intii uu guriga kasoo baxayay. markii saa uga soo baxay sibana gaadhigii uu marsiiyey. taasina waxay ku kaliftay in intii noloshiisa ka dhiman oo dhan uu siban saarnaado gaadhigan wiiljeerka ama gaadhigan curyaaninta lagu riixo dadkan yacni qaarka hoose naafada ka ah. waxa dhacday in qofkii yacni qof curyaan ah oo aan ku dhalan oo markaa yacni accident dhacay oo qaarkii hoose ka dhintay. waxaa yacni qof waliba waa uu niyeysanaya, wuxuu odhanayaa qacani qofkani dhibaatadii badneed wuu iska daynayaa, hawsha wuu iska yaraynayaa, qalbi jab baa ku dhacaya. laakiin iska badaaya hadduu kasii daray curyaannimadiisana iyo dadku beer la xawsaday. booliska marka laga ashkateeyo waxaa la odhanaya wiilkan waa curyaan, cidi la hadli mayso. dumarkii uu wadooyinka suuqyada waan kuguri iska daa afku ka hadla faruhu la gelayaa. qaaruu faraxumeeyo, caruuruu faraxumeeyo, nimanuu faraxumeeyo. yacni kiisaskii reerkoodii waxay gaadheen inay yidhaahdaan anaga hanoo soo sheeginina ee wuxuu idinku sameeyey ka goosta dila, maanu dhalin wiilkan, anagu dibna nooma sheegan karo. waxaan kugu iri wiilkii dhibaatadiisii caruuro badan buu faraxumeeyey, niman badan. wuxuu bilaabay inuu mukhaadaraadka ka ganacsado. ninkuu lacag yar ku yeesho wuxuu odhanayaa kaalay yacni aynu anshaxumo samayno, kii yeelaana waa yeelay, kii kalena hadalkiisa daa waa la dilayaa. waxa dhacday siduu sidaa ku waday ramadaanta ka horeysay in habeen uu arkay wiil la yidhahdo cabdulilaah oo wadada maraya. wuxuu ku yidhi kaalay waxaan doonayaa in aad kaxaysid oo i gaadhsiisid gurigayga, cimaarada dabka ugu sarreeya weeye, kama gudbi karo. yacni wiilkiina waa kaxeeyey, waa caawiyey. gurigii markuu saa ogeeyay ayuu wiilkii isiri bax, wuxuu yidhi kaale horta waxaan doonaya madaxnala cabdida nala joogtada. marka cabaan u sheekeeyey buu yidhi daayna samayna dhaqan xumadii. laakiin wiilkani waa diiday, wuxuuna yidhi waa sii soconayaa salaamaad. wiilkii markuu isiri saa u jeesto wuxuuba ku waraxlay mindi ka taagan bartaa xangulaha ama halkaa la dhaha cumuud alfiqari spinal cordka, adigu hadda sidaad garanaysid ayaa mindi laga taagay. halkaasna yacni waa qofka dee jirkiisaba inta xidhiidhinaysa. waxaa dhacday in markiiba dhiiggii soo boodo oo wiilkiina dhaco. maxaad u malaynaysaa qofkii falkaa geystay inuu qofku argagaxo? ma argagixine intii uu soo orday ayuu wiilkii dhibaatadaas oo dhan haysatay ee uu dilay faraxumeeyey. waxa dhacday in uu markii uu yacni faraxumeeyey uu wiilkii arkay inuu wiilkani meyd yahay. kajadii galay faash danaadhiga lagu qalo intuu soo qaatay ku googooyay hilibkiisii. in wuxuu ku riday bacaha qashinka, ina wuxuu ku riday talaagada si aanay u qurmin. waxa dhacday in dhowr casho markii ay kasoo wareegtay hawlihiisa iska watay, maba moodaysa qof wax geystay in uu urur gurigii cimaaradii iska daa dariskiisii cimaaradii oo dhan baa lasoo geli kari waayey. maalinkii dambe wuxuu waa lagu kashifaya. wuxuu yeedhay niman hindi iyo filibiiniyiin ah, wuxuuna yidhi iga soo nadiifiyo guriga. nimankii waa bixii qaaday, waa gureen. marka ilaahay ku kashifaayo waa meesheeda ee bac ka mida bixihii ayaa dhacday. waxaana kasoo booday lug, waa lugtii cabdulilaah.
nimankii waa argagaxeen waxayna aadeen dhankii booliska. Booliskii ba u sheegeen, booliskii guriga waa yimaadeen, waa arkeen wixii meesha ku jira hilibkii, waxayna ogaadeen inuu gurigani degan yahay cabdulilaah. Reerkiina waxaa loo sheegay yacni cabdulilaah guriga ma degana, cabdulilaah waa wiilka la dilay ee guriga waxa degan siban. sibanow halkii lagaa rabay in aad argagaxdid wuxuu anigu ma dilin, wuxuu ma geysan, dadkii oo dhanna waa lasoo safteen, deriskiisii oo dhan may wiilkana dhibaatadan ma geysan karo. Xitaa hooyadii wiilkan dhashay la dilay ee cabdulilaah waxay tiri wiilkan keliya, wiilkan sibani ma dilin inankayga, waayo wiilkan waa wiil curyaana, maxay tiri mana dili karo, qofkii dilay inankayga ha soo saaro. Waxaa dhacday laakiin ugu dambeyn in la xaqiijiyo inuu isagu dilay, waxaana lagu xukumay in la dilo oo la daldalo. Laakiin arrinka la yaab kale waxay ahayd inuu ilaahayba ku ciqaabay intii uu jeelka ku jiray, waxaana isla markiiba uu dhintay wadna istaag. xasbuna allah wa nicma alwakiil. halkaa ayay qisadeeni ku dhammaatay siban iyo cabdulilaah. waana rajeynayaa aad ka heshay qisada. channelka subscribe saar, gambaleelka furo, fiidiyoyadana like saar. salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. nooli kulanteen.